بسم الله الرحمن الرحيم. caawa waxaan kusoo booqanay boqor cawil xasan ku magac dheer boqor cirmadow. xaalado degdeg ah oo kasoo cusboonaaday magaalada ceelaf weyn. bal waxaan doonaynaa inaan ka wareysano xaaladaha waxa uu ka og yahay iyo xidhiidh inuu la yeeshay. kusoo dhawo boqor. waan dhawahay cabdi. waxaan salaamayaa ummadda islaamka ama ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda somaliland. waxaan ku salaamaya salaanta islaamka. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. boqor waxaa jirta warar degdeg oo mar dhawatana soo gaaray oo sheegaya in ciidamadii jabhadda ahaa ee joogay gobolka bari qardho inay soo gaadheen magaalada ceelaf weyn. halkaas ay rasaas badan ay ka dhacday, dhaawac badan iyo la sheegaya in dhimasho jirto. arrimaha wax warama ka haysa ma kala socota adigu? cabdi haa, waxaan ahay waad garanaysaa, waxaan ahay boqorka beesha garxajis, odayaasha u taliya ay talada ku gooda gustameedka abaanay. haa, waan ka warhayaa ciidamada xaquudirirka somaliland ee soomaaliyeed ee jancaara iyo baaxad wato markay u adkeysan waayeen dhibaatada ka taagan dowlad goboleedka somaliland ka taagan ee soo noqnoqotay ee ninkii lahaa degta qorigu hayfuro laba doolme degta qorigu hayfuro ninkii lahaa maanta uu madaxweyne ka noqday iyadoo ay sababayso gaashaanbuur ama jeegaan sababteedu jeclaysiya oo cilaska haysmayo ay sababtay in ninkii lahaa degta qorigu hayfuro anigoo hadili kala duca qaadan maayo shalay lahaa ee maatada gumaadayay ee ciidamada soo gelinayay marka uu maanta madaxweyne laga dhigay waxa aanoo beesha boqorka raajista aanu cilaaminay in laga diriro mar labaad oo laga kaco oo ciidamada xaquudirirka soomaaliyeed ka kacaan uu jancaar wato iyo baaxad waanay ka kaceen, waanay soo galeen ceelaf weyn. khasaaro aada u ballaaran ciidanka qaranka way gaarsiiyeen, isku sheega way gaarsiiyeen. waxaanse baaq u diraya waxa la waa beero waxa laala wixii beesha garxajis kaga jira ciidamada inay ku fiiraan ciidamada qaranka soomaaliyeed. waxaan kuu sheegayaa markii afweyne lala dagaalamayay kaligii taliyay maxamed siyaad barre intaa 100,000 kun oo kornayn ama saraakiil reer ay kaga dhimatay somaliland ay kaga dhimatay waxaa jira beesha garxajis wala callaan iyo ballaan sacuudda habarweli saciida gala maaha. waa aniga ninka ku baaqi kara soomaali weyn, ninka ku baaqi kara somaliland waa aniga, ka u soo dhintay waa aniga, ka ka yeeli kara waa aniga. mar haddii ay noqotay kii shalayta maatada gumaadayay duca qaadan maayo degta qorigu hayfura kii shalayta lahaa maanta dolka soo gaaray. waxaan kuu sheegay ana inaan beesha garxajis ahay, inaan bari ilaa galbeeda lagu dego, inaan baawarka ugu weynahay, inaan waxaan doonaan samayn karo. dowladdii maxamed siyaad barre kaligii taliyihii raggii riday baan ka mid ahaa. waxaa nagaga dhintay oo beesha garxajis markaan kuu sheegay nagaga dhintay kumayaal saraakiila waa la qirsan yahay. beel quroo isaaq ay kaga dhimatay ma jirto intay kaga dhimata waaye tanna maanta waanaan doonayn. waxaanu ku celinaynaa midnimadii soomaaliyeed. waxaana marka hore islam ka bilaabantay inay midnimada soomaalida ajiso. tiibaanu wadnaa, tiibaanu isu geenanaa. waxaanu sheegayaa ninka lagu yidhaahdo farmaajo madaxweynaha qaranka soomaaliyeed waxaanu leenahay in badanbaad somaliland raadinaysay haddaanu gacanta kugu haynaa ciidamadii qaranka soomaaliyeed halkaasaan u saaro oo jancaariyo iyo baaxad weeyaan. weli maanta maad soo booqan saadkii ciidanka umaad siinin. cid u tagtay ma jirto iyo ra-iisul wasaarahaba cid u ambaliyaysay ma jirto, cid u qortay mushaharkii ma jirto, cid darajadii siisay ma jirto. waana ciidankii qaranka soomaaliyeed midnimadaas raadinaysa anaa raadiyey aniga bartaan dhigay. waa in si degdega ciidanka qaranka soomaaliyeed uga kacaan oo si degdega saaradii military iyo sahayadii military iyo xoojintiiba loo siiya. waxaanahay boqor halkan baan uga ururiyaa dhaqaalaha oo uga dira. waxaana cuqaasha somaliland waa gobol, waa puntland iyo somaliland waxaway gobol dalgoboleed baynu samaysanay. waa qaybteedii waanu ogollay waanu sameynay ciidankii qaranka soomaaliyeed midnimada soomaaliyed oon raacsana. waa intii cuqaashu lahayd laydka hela oo lahayd laydka helaa. waa intii qaranka aan idiin saaray lahayd laydka helaa. waa ra-iisul wasaare allaale waa in si degdega uga soo jawaabaa kaliibkayga. waxaa jirta aad baad ugu dheeraatay. waxaa jirta in madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland uu joogo caawa magaalada burco isagoo kusii jeeda dhinaca bariga iyo gobolada sanaag. maxaad isaga fari lahayd aad u sheegi lahayd? wallaahi waa u hoog. waxa weeyaan kusii jeed maaha. waxa weeyaan waa u hoog iyo dhibaato. waxaan anigu fari lahaa isaga inuu halkaa u taagay isku casiro. weli sharaf baa u laaban inuu halkaa u taagay isku casiro. wuu casiri waaye degta qorigo faradiibu mudhaamoodii wax ku qabanaya balaa ku qabta kuwii dalka xoreeyay waxa weeye beesha garxajis waa callaan iyo ballaan
nimanka ciidamada socda wuxuu habluus ciidan galama ilaa hargeysa ilaa berbera ilaa bro ilaa ceergaabo ilaa laascaanood ilaa geeska u dambeeya ninka degan waa aniga ninka wax ka qabtaana waa aniga ninka Soomaaliyeed ku dari karana waa aniga ninka inta Soomaaliyeed doonayay inuu runiyo waa aniga markaan ka dagaalamayay takaliisalsiisal bare de waxay ahayd saal musum waxa allaala wixii maanta la boobiyo xalaqaysmi aan ka dhidhiyo koronayda ku dhimanay war maanta hadduu ilaahay digta qoriga hay furo maanta digta qoriga hay furo ku fuulay midnimada Soomaaliyeed baa raadinayna si degdeg soo casir baa leenay qaranka Soomaaliyeed baa loo hambalyeynaa farmaajo loo hambalyeynaa cadkeygii uqaaleed haddana aniga ayaa uqaasha kala Suudaan Maxamed kamid yahay ee aan hawsha ku wadno u yahay waynu cadkeygii meel iska dhiga ciidamada si degdeg taakuladii iyo saadkii ciidan iyo darajadii loo siiyo waxaad sheegtay boqor hadalka ku jira in ciidamada caare iyo jabhadda halka ku sugan aad dhaqaalahooda wax ka bixiso caawa markii la soo sheegay in dagaal halka ka dhaceen ama ceelfayn qalaasaas uu ka dhacay wax xiriir ma la sameysay caare wala sameeyay saacad ka hor baan laali sayay baa ku dhadhaxda waxay sheegeen inay guul taagan yihiin mar walba waan wada hadalnaa waana soconaysaa inta midnimada Soomaaliyeed leelayo inta ay ciidanka qaranka Soomaaliyeed awoodoodina soo siinayaan inta ay Soomaaliya mid qula noqonayso taasaan wadnaa taasaan u taaganay ninna ka haybadaysan meel ninka ku dhawaaq karana waa aniga saacad haddaynu joogno iyadoo ay tahay warkani gabagabo maxaad isaga fari lahayd korneel caare xageesa hadda uu ku sugan yahay wuxuu ku sugan yahay magaalada lagu yiraahdo ceelafweyn ciidanku uu haystaa ciidanka qaranka isku sheegaana qasaaro ballaaran baa soo gaalo dib ay uga baxeen saan imika ognahay tiknika iyo ragba waa laga hayaa qasaaro wixii dambena dib aynu kasoo sheegi doonaa say iguba ii sheegeen midnimada Soomaaliyeed baan raadinaynaa farmaajo iyo waa fariinteeda ku socdaa iyo ninka lagu yiraahdo ra'iisul wasaaraha labadaba waxaan u sheegayaa inay si degdeg ah ciidamada qaranka Soomaaliyeed sanadii military sitaan halka u saaray inay si degdeg ah taakuladii ciidan iyo sanadii military ugu doonsiiyay marka barayna aad iyo aad baad boqor Cawil Xasan u mahadsan tahay aad iyo aadna waan ku salaaminaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh